isku soo baxan ballaaran ee ka dhacay magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya isla marhaantan ay soo qabanqaabisay dowladda hoose ayaa waxaa muhiimadiisu ahayd in la ilaaliyo nadaafadda guud ahaanba magaalada Nairobi. boqolaal dadweyne ayaa isugu soo baxay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi kuwaas oo maanta howlgal qashin aruurina ka sameeyay gudaha xaafadda Islii. waxaa la arkayay gaadiid fara badan oo isku dayaya inay xaafadaha kala duwan ee Islii ay ka soo aruuriyaan qashinka buuxa. waxaa howlgalkan qashin aruurinta maanta kaalin weyn ka qaatay shirkadda Car Investment oo ay shirkadda Soomaaliya hormuud ka yihiin isla mar ahaantaana sheegay inay ka shaqeynayaan nadaafadda xaafadda Islii. Sheekh Daawud oo ah xogayaha Car Investment ayaa markii uu soo dhamaaday howlgalka iyo barnaamijkan looga hadlayay nadaafadda xaafadda Islii waxa uu wareysi gaar ah uu siiyay Kalson uu sheegay in ay sii wadi doonaan nadaafadda xaafadda Islii inaan ku soo celino ayaan waxa weeye ayaan ugu tirigalnay qorshe aad u ballaaran oo qayb ah oo waxa weeye phase 1 phase 2 phase sidaas kaleeto isu daba yeela ayaan ugu tirigalnay waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysan doono. gudoomiye ku-xigeenka guddiga ganacsatada xaafadda Islii ee magaalada Nairobi Hussein Aar oo isna Kalson TV la hadlay ayaa waxa uu sheegay in nadaafadda xaafadda ay tahay mid muhiim ah isagoo u mahadceliyay ururada isku taagay xilligan inay nadaafadda xaafadda ka shaqeeyaan. waxaan iminay xaafaddan Islii anigoo 5 jira maantana 17 jir baan ahay 66 baan dhex taagnaa kontonkii waa la meeyri jiray habeenkii iska daa wax la xaaqe waa la meeyri jiray dhibaatada waxaa keenay runtii markaynu aragno markay dadku ku soo bateen dawladdu way u maaran waayday city councilku waa u maaran waayay markaa nasiib maanta waxaa yimi shirkado ay Soomaali leedahay shirkadihii ma socon karaan kharash la'aan marka anigu ummadda waxaan ku gubaabinayaa in kharashkoodana loo ogolaado aynu nadaafadana kala xisaabtanno haddii ay wax qaban waayaan lacagteenna iska haysanno laakiin haddii ay wax qabtaan waa aragnay gawaadhi bay keeneen taraktaray keeneen wax walba way keeneen markaa waxaan odhan lahaa diyaar ha loo noqdo sidii qarashkooda loo bixin lahaa. Abdullahi Ahmed Nuur, Kalson TV, magaalada Nairobi.